iyadoo ay abaaro xoogani ku dhufteen deegaanada hoos imaada gobolkani awdal geystayna barakacaad u tiro badan iyo dhimasho lagu qiyaaso tiradeeda 5 ruux ayaa barasaabka gobolka awdal iyo duqa degmada Boorama waxa ay ku baaqeen gurmad degdeg ah oo la soo gaaro oo dadka ay saameeyeen abaarahani barasaabka gobolka awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu ka dhawaajiyay ilaahay xaaladana ilaahay baan baan baryaynaa inuu ilaahay gurmad degdeg ah siiyo laakiin xaaladda gobolku galay waa xaalad aad iyo aad runtii u adag haday tahay xukuumadda haday tahay hay'adaha gobolka ka howlgala haday tahay ganacsatada waxaan faraynaa in xaaladda degdega laga qayb galo booyada ugu horeeyana haddaan dhaqaajinaynaa inaan dadka u gurmano wadooyinka mixiinka soo mooday ee caruurtoodii ay dhaleen cidlada runtii kaga tagaya xoolo iska daa sida darteed xaaladaha gobolada kale ku jiraan iyo gobolka Yugbaanta ku jira waa aad bay kala duwan tahay heerka markay gaadho runtii qofkii daba dheer garanaya 60 qof iyo 100 la aasay ayaan dub xusuustay aad baan ugu weey waa maalintii ugu horeysay intaan la shay 3 maalmood baan oo maanta waa maalin kamid ah runtii waa maalin kamid ah waayo daba dheer baan xusuusanahay dadkii la aasayay 60 iyo 70 geesta kale meeyarka degmadani Boorama Maxamed Xuseen Meedhane ayaa isaguna ka codsaday bulshada ka soo jeeda gobolka Awdal iyo kuwa Soomaaliland in gurmad degdeg ah la soo gaaro dadkaas ay abaaraha iyo barakaca xoogani saameeyay xaalad degdeg ah ay nagu ku sugan waxa loo baahan yahay inaan u gurmano dadka walaalaheena ee barakacayaasha ah من إلا فردحن إلا قلجيت استبداتسن حوله أي لصق قلولين قبل لتجينا أي كذا معرين ذاتك سودة أي استاء السعودان قرم الدقدقة أي سويان ما حمدان ما أنت ميل كله يوح كلك عد كلام كسوي كرنو أرت النفتين إن يمال كين ما أنت هرنو isku soo wada duub oo abaartani ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay abaarihii xoogana ee ku dhuftay ka degan gobolada galbeedka Soomaaliland waa Jaamac Xuseen Jaamac Dude Space Channel Boorama